السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدي السلام عليه قالي سيتهين في عنتهين ما شاء الله. وولاجي زهرة أحمد زهرة فاشيون وال أو مركل إذن له مع النمو وناكسن ظهر نمو وناكسن ما شاء الله سو نقد وعن وحمان تدنا ربعنا عن هل كان كشيء نتيجة دي labadii gabar ee wiilka tartamayay cidi ku guuleysatay iyo sakan cidi gashay marka qofka koowaad hadaa idin soo qabto oo natiijada koowaad oo ku guuleystay waxay ahayd Fawzima Axmed waxay ku guuleysatay 213 dhibcood 213 dhibcood ay ku guuleysatay oo ku hogaaminaysay kooxda ay la tartamaysay marka channelkeeda taga waxaa idin ka codsanayaa inaad soo booqataan subscribe like share comment intuu ka mudan yahay qof walaalka insha Allah haddana waxaan noo soo qaban doonaa qofka xiga oo kaalinta labaad galay ma sha Allah mabruuk Fawzima Axmed marka halkaas marka mareyno waxaa xigay gabar kale ayadana oo kaalinta labaad gashay ma sha Allah tabarakallah guuli isku day ka dambaysa horto saddexda way dadaaleen marka tartamaysid ma ahan qasbiyan inaad guuleysato laakiin muhiimadu waa inaad isku daydo marka gabadha labaad ee tartanka kaalinta labaad ka gashay waa gabadha la yiraahdo Yasmin Lifestyle Yasmin welcome ayaan ku leeyahay waad isku dayday ma sha Allah kaalinta labaad ayay gashay Yasmin waxayna ku guuleysatay 55 cod Yasmin welcome waxaadan isku dayin laguma guuleysto hambali ayaan ku leeyahay waxaa idinka codsanayaa inaad soo booqataan walaashiin Yasmin channelkeeda waxyaabo badan ayaad ka heleysaan ma sha Allah tabarakallah soo booqda Yasmin insha Allah waxa kaalinta saddexaad galay isagana wiil ma sha Allah tabarakallah isagana ma yareysto wuu dadaalay waxaan la isku dayin laguma guuleysto marka kulligood waxaan rabaa inaad soo dhiirigelisaan oo aad jannaladooda soo booqataan kulligood Fawzima Axmed Yasmin Lifestyle iyo wiilka kale hadda janalkiisa aan rabo inaan idin soo saaro shaashada insha Allah qof aan isku dayin ma guuleysto marka guul darradu waxay ka wanaagsan tahay isku dayin la'aanta waxaad isku dayda markastaba waa adigoo ku guuleystay camal marka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu markale tartanka soo gali doono si uu ugu guuleysto maadaama hadda uu galay kaalinka saddexaad insha Allah dhimale asagana walaalkeen channelkiisa waxaa idin soo saarayaa shaashada waxaan ka codsanaynaa soo booqataan intii aad siin kartiin aad ugu dadaashaan like and subscribe-ka like-ta comment share wixii markaas aad awoodaan channelada waxaa inta idinku soo saaray waa inaad soo booqataan waxa loo tartamayo dhanba waxa waaye in wax la helo marka insha Allah walaalihiin caawiya inaas caawin ay danta ku jirtaa haduu Ilaahay ka raali noqdo soo caawiyo waa channel yar oo soo kacayo waaye marka waxaan rabaa inaad soo caawisaan insha Allah waxaan ku abaal marinayna qofka guuleystana qofkaas anaga luqan ka hadlaynaa in kastoon hore u sheegnay qofkii aan waqtiga buuxin waa saacado oo I mean 40 saacada buuxin qofkii buuxiyeen subscribe ayuu nagu leeyahay marka saas ayaan u abaal marineynaa wiilka xiga hadaan soo qabto ma sha Allah waxa la yiraahdaa Maxamed Team wuxuu galay kaalinta saddexaad isagana soo booqda hore idinku sheegay dhiirigelinta waa xaqiina Maxamed welcome ayaan ku leeyahay isku day ay guuli ka dambaysaa ma sha Allah tabarakallah waa dadaashay hambali aan ku leeyahay adigana Maxamed wuxuu galay kaalinka saddexaad marka saddexdaas channel oo walaalihiina soo booqdo Fawzima Axmed Yasmin Lifestyle iyo Maxamed Team insha Allah dhiirigelintu waa xaqiina anigana waxaan idin leeyahay intii ugu cusub subscribe intii hore ila socoteen like share and comment qeyr badan ayaan idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh